qodobadaas madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodob baan odhanaya odayaashii burco ka hadlay iyagana hal baan odhanaya allahu mustacaan odayaasha habar jeclo run ahaantii sharafta iyo karaamada huwan ee hargeysa madaxweynaha kula kulmayna hal baan odhanaya bahweynta urur siyaasadeedka ka hana hal baan odhanaya haddaan ku horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane madaxweyne waxaad qaadatay go'aan geesinimo leh oo waxaad furtay tartan siyaasadeed oo xor ah iyadoo ay jirto dhaliilo fara badan iyo waxyaabo fara badan oo xusbiga kulmiye dhexdiisa ka yimi oo faashil ahaa waxaanu kaa codsanaynaa dadkii ku doortay baanu nahay inaanay dhicin inaad sidii helnaarkii marka nafta laga qaado samada ka arki jiray camalkiisii xumaa ee indhaha hoos u rogi jiray halka aad marisay majara xumaanta iyo mowqifnimada kulmiye yay kuu muuqanoo go'aankaagii ku shaqee kaasaad shacabka somalilan wax kaga helay xeerka sharcigaad ilaalisay baad wax ku helay meel kaloo kugu bannaanay ma jirto dhowr qodoboo horaa ku sheegay kaasiyaanu ku sheegin odayaasha mudan ee habar jeclo ee salaadiinta iyo cuqaasha iyo madax dhaqameedka habar jeclo ee madaxweynuhu la kulmayna waxaan leeyahay waanu ku kalsoonnahay kulankiina madaxweynaha la kulanteen haddaanu nahay dadkii aad matalayseen ma filayno inaad soo qaadaan cadliita iyo caano candho dameeraad ku jira taasoo macnaheedu yahay xusbigii kulmiye ee la kanfay ee iilka la dhigay inaad dib istidhaahdaan arwaaxda ugu soo celiya waa dembi wixii kale ee go'aamaa ee aad soo saartaan ee madaxweynaha la gaadhaan waanu soo dhoweynaynaa odayaasha burco ka hadlay shalay ee habar jeclo bari sheegtay ku hadlayay afkoodana waxaan leeyahay hargeysiin gojo xaggee lagu qaado ka weyn habar jeclo bari in intaa 10 qof oo meel isugu yimi ay ku hadlaan afkeedii meel baa kaga dhacdeen gudoomiye ciro hal baan odhanayaa waa abtigay respect biga mudan yahay ixtiraam biga mudan yahay macallinkayga siyaasadda urur siyaasadeedkii wadani baanu soo wada aasaasnay ilaa iyo intuu xusbi ahaa abti waxaa soo noqotay hogaamiyeyaasha dalka saddexda kursi ugu sarreeya kursi ka mid ah baad ku fadhiday shalayna waxaad u tartantay jagada madaxweynenimo oo aanad ku guulaysan taasoo calaf ahayd waxaad maantana u tartamaysay jagada madaxweynenimo xusbiga wadani waxaa xusbiga ugu saamaynta badan markaan realitiga ka hadallo saddexda xusbiye jira abti waa adigii haylaale soo heeriyeeyey hilinkii siyaasadeed toosnaana wadani waa adigii ka lumiyey intaasaan ku leeyahay waxaan kaloo siyaasiyiinta guud ee somalilan boranaya gaar ahaan beesha isaaq haddaan ururada la furin somalilan uma arkaya anugu in somalilan la wada leeyahay tahay innagoo madaxweynihii leh ogolayaashii haysana oo dhammaan meel walba joogno beesha isaaqa ayaan maalin walba nin tv-ga ka soo hanjabaya soomaalidu waxay tahdaa marka indho gardarani ooyaan maxaad u malaynaysaa kuwo garlana beelaha darafyada ee daawanaya somalilan jecel aad baan ugu hambalyeynaya maantase iyagaanu la dareen oo la go'aannahay in doorashada ururada la qabtana diyaar baan u nahay taa intaasaan ku dhaafayaa waxaan hambalyeynay iyo bogaadin u dirayaa asaasayaasha ururka kaah oo ugu horeeyo gudoomiyaha ururka iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka maxamuud xaashi cabdi iyo cabdulaahi habane waxaa farxad weyn ah oo run ahaantii wax lagu daydo ah inay siyaasad cusub tahay in 600 oo qof ay noqdaan aasaase urur taasoo tusaysa wax la wada leeyahay inay tahay kaah
إلهي بقرآن كسحكوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كهذا الوناكسن مدتك حق إلهي يقول يوريه وهضنا له حمد ديريه مسلمين تنكمده ولله المثل الأعلى يضوط صلاة سر إلهي وسبناضي رهانتي وحن له يا كهجامين يهلين توصن هجامياشه لحظة بقول قارية أنت يسوي مادين wax Soomaaliland wada leedahay sameeyay ruhaantii waanu bogaadinayna waanu hambalyeynayna ma soo koobi karo magacyadooda waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland kaah baa matali kara su'aalaha hadaan soo qaato golaha sharci dejinta ee codkii shacabka u fadhiya ururka kaah wuxuu haystaa 1/3 iyo in ka badan taas waxaan aaminsanahay inay Soomaaliland wada matali karaan rag badan oo aan magacyadooda halkan ku soo koobi karin oo runaantii baalasha uu ku duulayo ururka cafwan kaah Axmed Cali Maxamuud kamid yahay iyo dhamaanba golayaasha xildhibaanada iyo asaasayaasha haweenka dhamaantiin waxaan u idinku bogaadinayna inta waxaan ku darayaa qolada madaxweynaha ka agdhow ee maalintii shirweynaha loo dooranayo موسى يسوع عمامضي مش حرض يوم ملخط كلف دي قوبتي ما أنتنا قعمة مرن كسيدة وحنقول لنا أنا وضام شعب كنا هاي وحنو أرجنا صومالي ده واحد تالا هالين هرجال بالله مصنت عساننا عبيس بالله أعتها هاس معناه هي وحويه وحياة دربان تويسين ويجين قوي هنا كمان عن حمين وأنا كنت هاجر لأنه كل سلهين هنا نقطان إن بوسكي متليي ان قدوميا حسبي خلميه كوميدان غوليسن شعبكينا wuxuu noqday ciisaantii cadayska la qaylinayay hashi harugaalka la aamustaydna maxamed xaashi cabdi uu noqdayo waa ka dee aynu aragno maanta ururkii ka halka uu marayo dhamaantii wada bogaadinaya waxaan leeyahay Somaliland midnimadeeda iyo horumarkeeda hal aynu ka wada shaqeyno cid hanjabaysa oo cid wax yeeli kartaana ma jirto annaguna waxaan taaganahay maanta halkan kama sheegayno waxaan samayn doono 5 bilyan qof in ka badan baan afkoodii ku hadlaya afkayga kuma hadlayo laakiin waxaan aaminsanahay ku wada soconnaa waxaan ku wada soconnaa ku hadli maayo waxaan ku wada soconnaa naga go'an talaabada muuse uu qaaday maanta hadduu ka noqdo annaguna inaanu qaadno talaabo aan Somalilandna ku farxin dalkeenna wax yeesha saameynna ku yeelata tugan salaamu alaykum